anigoo ku hadlaaya afka culimadii garsoorka ka ahayd colaaddii ceel afweyn waxaannu xusuusinaynaa cid kasta oo ay khusayso ama qayb ka ahayd arrintaa waxaannu xusuusinaynaa in xukunkii colaaddii deegaanka ceel afweyn uu soo baxay kowdii bishii 8aad sannadkan 2018 qodobada ku jiray xukunkaas waxaa ka mid ahaa in la bixiyo maghoraadka ama jifooyinka dadkii aan jifadooda la bixin 2 bilood gudahood isla markaana marka jifada la bixinayo in dadkii dhaawacmay dhaawacooda la xaqo haddaba waxay ballantu ay ahayd in garsoorka culimada ahayd iyo dhaqankaba ay cidi ka soo noqoto marka ay 2 bilood dhammaadaan si ay goobjoog uga noqdaan magta la kala qaadanayo isla markaana ay culimadu u xaqdo dadkii dhaawacmay ee dhibaatadaasi dhibtu ka soo gaadhay haddaba waxay culimadu xusuusinaysaa ama ay caddaynaysaa in wakhtigii la ballamay ay ka hadhay wax 1 toddobaad ka yar ama 1 usbuuc ka yar sidaa darteed annagoo u mahadnaqayna cid kasta oo ku hawlan habsami u qabsoonka iyo ururinta maalkii iyo magtii lagu ballamay haddii cidda ku hawlane ay tahay salaadiin cuqaal waayeel waxgarad ganacsato iyo culimo annagoo u mahadnaqayna waxaannu ugu baaqaynaa in la dedejiyo ururinta maalkii iyo magihii lagu ballamay guddida culimmadu dhinaceeda waxay diyaar u yihiin in ay soo noqdaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii ay ballantu ahayd ama ay ku ballameen waxay culimmadu iyo dhaqanka ciddii looga maarmi waayaaba ay soo noqon doonaan marka ugu horraysa ee diyaargarowga dhinaca beeluhu uu dhammaystirmo annaga oo rajaynayna in sida ugu dhaqsiyaha badan la isugu yeedhi doono waxaannu xusuusinaynaa cid kasta oo arrintaa ku hawlan farahana ku haysa in wax kasta oo dibidhac ku keena ururinta maalkaas iyo qabashada xilligii lagu ballamay in wax kasta oo taa dibidhaca kuwihii aanu saacidaynin ama aanu waxtar u ahayn nabadda qiimaha badan ee la qaatay ee ilaa hadda sida aadka iyo aadka u fiican u socoto waxaan rajaynaa in arrintaasi aanu ku dhicin wax dibudhaca